waraxmatullaahi wabarakaatuhu. Maantay taariikhda tahay bishii 2/25/2021 anigoo ah Doctoraysa Bishaaro Sheekh Cali. Waxaan rabaa halkan inaan baaq uga diro ummadda Soomaaliyeed, qaas ahaan walaalaha iyo madaxda maanta xilka noo haysa oo xilkoodu dhammaaday, iyo mas'uuliyiinta musharaxiinta oo nin walba uu doorkiisa laga rabo inuu qaato. Waxaan rabnaa in la helo runtii, waxaan rabnaa inaan anaga cabirno, anigoo matalaya shacabka Soomaaliyeed ayaan rabaa waxa aan rabno inaan cabirno. Anagu waxaan rabnaa madaxweyne diintiyo dalkiisaan daafaca. Anagu waxaan rabnaa mas'uul aan daalino danaha Soomaalinimo naftiisaan u hura. Anagu waxaan rabnaa qarankeeno dumino dalaal uu galin ragow. Anagu waxaan rabnaa qarankeeno dumino dalaal uu galin ragow. Anagu waxaan rabnaa dalkeeno cudud helo camiran dabaaldegiyo ciidamada dunida ay daawataa. Waxaan rabaa wax yar oo kale oo dardaaran aan ku daro meeshan. Daahan ka qaaday dunuubtayda wixii gubay. Anigoo dal iyo diin lahaan daciif ku noolahay. Doorarkan dhalnana dantooda ma oga iyo dooxatay noqdeene. Dhulkii maatada iyo maalkii dalaqsadeene. Ayaguna isma daayaane ragga doorkiyo daakii yiraahday doc wareemaane. Wax yar baan dib u noqon su'aal ku weydiinaye. Maxaa idiin diiday dhulkan dahsoon inaad dayrataane? Maxaa dalal kale ugu daba dhaqdaa dollar ku siine? Oo maad adigu daldalatid, Ilaah baa dalkaaga dhigay. Waxaan darooriyo hadal waxaan ku daalay. Waa su'aal Soomaaliyey, maxaa ii diiday inaan dalkayga nolol ku dabaaldege? Oo maxaa ii diiday inaan mashxarad iyo farxad ku noolaadaye? Oo maxaa ii diiday inaan sida hooyada caalamka anigoo babinaya calankayga buluuga ah inaan badaha ku gooshaay? Gabayga intaas ayaan ku soo jeediyay, dardaarankaygii iyo calaacalkii intaba. Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh.